halkan waa Sheekh Xawaare halkan Sheekh Xawaare la yiraahdo waxyaabo badan baa ku soo kordhay iskuulka masaajidka madrasadda ceelka waxyaabaha badan baa ku soo kordhay waanan ku mahadinaynaa cidda hay'adaha soo jiiday iyo hay'adaha waan ku mahadinaynaa maayarka Seylacna waan mahadinaynaa بسم الله الرحمن الرحيم أنا والكن اسمكن معلمك إن قبض اللاعب أي نودسن قرب جوكتيو محايا سكان عاوز سكان عشرين ما يركزيله مركا هاد بان وها بلينا نكون نودسي إيو اسمك قرث بالله ولكن واحد يقبرني dadka jahliga laga saaro noo dhisay aad baan iyaguna ugu habaleyna in iyaguna maxay iskuulka maadaama noo dhiseen ay noogu daraan biyihii oo biyo la'aan ay magaalada taalkan iyo goob maxay caafimaad dhaqtar oo kale soo kale madrasadii amba iskuulkii oo noo dhisay marka waxaan leeyahay qolada aad iyo aad baan inagu mahad celinayna wada salaamati salaam alaykum بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن آدي وفرح سنة هاي إن شوفنا ما أنت ضد الله أو كثير سنة من السيرة تيجان كان ضد الله ما شرط وح بلو أو إن مجالك هم جيني مركي أنا كان صوم الري لبس أنا كهر بيت بالمرناي اللي كان سنقول مني أو مقاح ما شاير لسه يعني يو حد بان ظاهر دالية وابير بكردسنا halka maanta ilaa fildigo ka iskuul weyn oo qurux badan oo degmada Seylac maamulkeedu fuliyay iyo madrasadda iyo masaajidka ganacsiga waka ay wada dhisteen aqalada badan laga dhisay ceelashii oo ay u sameeyeen qurbo joogto waan soo maray iyaguna oo iyagu laakiin si hadda wali ay xogaa ay ka cabanayaan laakiin biyo fiican hadda leh laakiin laba ceel oo kamid mid kamid oo xogaa yar aadan loo dhisin laakiin kii gabadho dhisan isagu aad buu qurux badan yahay biyuuna ku jiraan laga cabaya marka halkani waa la digay inta ka dhimanna waxaan codsanaynaa cidii awoodeeda leh maxaan ku raama qurbo joon noqoto ama cid kalena ama dawladda ha noqotay in health boski lagu horeysiyo MCH-ka ku xigo adeegyadii caafimaadka biyihii waxbarashadiisa isku dhameystirmaan aad bad maasanta dib iska maqlaayeen hargeysa buuruma ku maqal marka la hargeysa buuruma joogaanada Seylac waxba ka maqal ninkaan lagula dhimanaya halka inoo fadhiya ee dhulka inoo xagaafaya anaga inooga khayr badan saadarteed waxaan leenahay hantaaq looma baahnay wax qabad baa loo baahan yahay xilligii wax la cunay way dhaafto sanad baa bahay sanadkaana wareegta ka soo baxday wareegtaana waxay leedahay mooshin maarada ka dhan lama qaban karo wareegtaasaan haynaa sharci degtaa ka dambeeyay oo bedelaya ma hayaan marka waa hantaaq iyo caqabad ay degmada ku soo kulinayaan anagu imka waxaan sugaynaa bihiyo labada gacmood aan ku marinaan sugaynaayo shirkad bir baa la bixiyo shirkad baa qaadatay qandaraaskiyo 2 mitir bay naga bedelaysaa imka dhawaan xasan kaayay shirkadoodii baa qaadatay durdur waan sugaynaa kuwii kale xaafadaha galinayay way ku xigaan bishan afraad bay ugu jeexayaan oo balanka loo dhigayaan saadarteed waxaan leenahay lagu gudoomiyo caqabad ku aanu haynaay kii burburinta dad haysaan تلوك بربرين توبة على تجا أنا هنتاقنا قبتي ودن كوح بوك قبتي وحسمية هرمر أنا أقول يلي سمي بسمية بعد ما قدوميهن سيلع أيم كتشوجا يقدومياشي هراء صامري ده كنت وده بدن حشيجان إنه يهي قدوميهن إمك وحكرنا هذا واحد بدن قبيها هذا لكن إن بدن واحد إن هراء قبل قدومياشي هراء ويسوق قبتي تام محكمة أي أو دقيقة سيلع معها والحقيقة صنطة إنه قدومياشي هراء كوح قبض بدنيا أو وحيالها وقبتي ده ودوس سمية دولدي هوسة هالمال أضو ده كده وسمية أضو حنداب كده وسمية عصب يعني نظام عصب وكان وحامرك وجه الرئيس ربع هالكن ما أنت رجل مهد عليو قدومية هالدقمة السيلع أو رنتي مددي إمك هيين ثلاثة وحوين قبتي اسبدل وين السمية
horumar aad u weyn ka muujiyay deegaanka degmada Saylac oo hadday tahay dhinaca caafimaadka iyo hadday tahay dhinaca waxbarashada maanta suuq weyn saribad weyn oo qurux badan oo ay ka dhiseen degmada Saylac ayaan soo maray aad baan ugu mahadnaqayaa runtii waxay dhiseen MCH-ka Toqoshi oo dhismaha qurux badan ay ka dhiseen waxay dib u habeeyeen oo ay dib u dhiseen kii Saylac gudoomiyaha wuxuu sheegay ilaa xariirad shaqaalaadana waa dhiseen marka waan u hambaliyeynayaa waan u mahad celinayaa wixii ay dadka u qabtaan baana berri lagu qiimeynayaa wax wacan baanay qabteen oo kollayba taariikhda u geli doona berrina lagu qiimeyn doono iskuullana way dhiseen